shaqaalaweynaha ka howlgala dekada weyn ee magaalada Berbera khaasatan waaxda farsamada ee loo yaqaano MT-da ayaa saaka isfahmi waa balaaran soo kala dhaxgalay shirkadda DP World kuwaasi oo isku fahmi waayay mushaharka ay xilligan qaadanayaan shaqaalahan kala duwan ayaana u soo dareeray dabadda iyagoo halkaasi ka dhigay magaalada bartamaheeda mudaharaad socod ah iyadoo booliiskuna ay halkaasi ku kala dareeriyeen xabad nool shaqaalaha ka badbaa la yidhi waanu idinka maaranay qayb ka midana waxaa la yidhi casual baa tihiin oo xaqba naguma liidin iyadoo intaasi jirto ayaa inamadaa la yidhi saaka gaadiidka waday waanu idinka maaranay xagganaan wax ka keensanaynaa waayahay waxaa la yidhi nimanka meesha qabsaday dee dawladda ka kiraysay meesha annaga nooma imanin nalamay hadlin maareeyo ayagii weli xaskuu ku jira ummadda waxaan u sheegaynaa in xaqdarro lagula wareegay dekadii madaaradii haddii uguxumaya laydhkii nagfiistii waxaan u sheegaynaa airbortkii baddana lala wareegay barrigana lala wareegay waxaanu yeelayna maaha waanaanu ka xaajo qaadna ninna isu daba taagmayna Berbera intaasi kadib barsaabka gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed ayaa isaguna xafiiskiisa wareysi ku siiyay warbaahinta kala duwan isagoo ka hadlay mudaharaad iyo waliba cabashada shaqaalahaasi saaka qayb kamid ah dekada shaqaalaha dekada iyo qoladii DP World ayaa luqad ahaan isku fahmi weyday laakiin sayidku insha Allah oo soo gabagabeeyay xuduudiyay soo saareen arrintii aan ka war hadalnay arrintaasna way dhamaatay ilaa ma jiro wax shaqaalo la xiro in kala ku annagu ma aqoonsani wax shaqaalo la xiro meesha laga soo baxay ma jirto laakiin sayidna ma yaro dibadda ka sameeyay waanu xirxay waxa saaray ma ka dhacay magaalada dhacdadan saaka ayaa ilaa imika sida la sheegayo waxa uu xidhan dhowr qof oo kamid ah shaqaalahaasi waaxda farsamada ee dekada magaalada Berbera iyo waliba wariye isagu safar ku yimid magaalada Berbera oo la kulmay dhacdadan oo isku dayay inuu wax ka duubto mudaharaadkaasi Khadar Cabdirasaaq Khadar Hanad oo isagu ka howlgala TV-ga Som News iyo waliba shabakada caalamiga ah ee Harwanaag News وياسين جامع علي تلفزيون كعالمي جاه بوشة TV مقالة حبيبة Berbera